ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada dadka deegaanka ayaa maalintii labaad waxay howlgallo ka dhan ah maleeshiyada arxanka daran ee shabaab ay ka wadaan deegaano dhaca koonfurta gobolka Mudug si gaar ah deegaano hoos yimaada degmada Xardheere ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Howlgalkan oo shalay ilaa iyo maanta socda ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada xoogga dadka deegaanka ee ku sugan degmada Xardheere oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxay ka furiyeen deegaanka Bacaad Faarax Aadan oo galbeed waqooyi kaga beegan degmada Xardheere ee koonfurta gobolka Mudug iyo sidoo kale deegaano kale oo miyiga oo hoos yimaada deegaanka Jawle. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sheegay in howlgalkan oo maalinkii labaad socda lagu bartilmaameysanayo saldhigyo maleeshiyada arxanka daran shabaab kaga dhumaalaysanayeen Bacaad Faarax Aadan iyo deegaano kale hoos yimaada halkaas oo si dhumaalaysi ku joogeen maalmihii la soo dhaafay maleeshiyada arxanka daran ee shabaab. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo helaya xogaha dadka deegaanka taasoo ku aadan dhumaalaysiga argagixisada ayaa howlgallo qorsheysan waxay hamin hore ka bilaabeen Bacaad Faarax Aadan iyo deegaanada miyiga hoos yimaada waxayna tilmaameen in lagu bartilmaameysaday ilaa iyo 3 saldhig oo maleeshiyaadku ku lahaayeen deegaanka Beer Faarax Aadan iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa tilmaamay in howlgalladii shalay toolo dhacay iyo duqeymihii isbarbar socday lagu bartilmaameysaday saldhigyadaas maleeshiyaadku ay ku sugnaayeen. Waxaa sidaas oo kale ay sheegeen in la gubay gaadiid dagaal oo argagixisadu ay ku safrayeen. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa ka kaashanaya howlgalka maalinkii labaad ka socda deegaanada koonfureed ee koonfurta gobolka Mudug hoos yimaada degmada Xardheere si gaar ah deegaanka Jawle oo wali ay ku sugan yihiin haraadi ka tirsan maleeshiyaadka arxanka daran ee shabaab. maalmihii la soo dhaafay waxaa socday howlgallo istaba jooga iyo sidoo kale kulamo abaabul ciidan oo la doonayay in la isugu xiro howlgallada ka socda gobolada Mudug iyo Galgaduud taasoo guddiga gacanta ku hayaan ay tilmaameen in qorshuhu yahay in si wada jir looga dhaqaaqo ilaa iyo degmada Ceeldheer ee koonfurta gobolka Mudug si hal mar loo ambaqaado howlgallada lagu saafjarayo argagixisada ee looga saarayo deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug.